horta waa magaalada Milano dalka Talyaaniga run ahaantii arrintan barada muddo dheer ay soo qaadatay aan ku dhawaad aan ku qiyaasi karo ilaa 6 bilood garoonkan in loo magac daro gabadhaasna waxaa keenay run ahaantii aan dhihi karaa maanta aniga Ismaaciil ahaan in oo ka qaatay kaalin weyn qorayga oo ka qoray buuggii gabadhaas ugu horeeyay Samiya waa buug oo green ah ama cagaar buuggaas oo run ahaantii iskoolada dhan dalka Talyaaniga dhan wada qabsaday dadka dhan wada akhriyeen dadka dhan run ahaantii haddana ka galay wadanka kaalinta koowaad ama number 1 marka buugga ayaa qoray buugga waxaa qoray Giuseppe Catozzoli oo qoraa oo qoraaga Talyaaniga ahaa marka wuxuu kaga hadlay taariikhda Samiya iyo sida ay xaaladeedii iyo meesha ay ku dhimatay oo iftiin taariikh weyn oo aan la soo koobi karin aniga hataa Giuseppe waa dad aan saaxiibana waan nahay waa la kulmay waa weydiiyay laakiin run ahaantii waxaa mucjisi ugu naqatay Ismaaciil ahaan markaan su'aasha weydiiyay wuxuu u yiri niyo aniga markaan go'aankan aan qoray buuggan uma bixin oo dhahay inaan Samiya taariikhdeeda aan qoro qorshe kale ama program kale u baxay oo dhahay anigoo ku sugan dalka Kenya su'aalaha kamid ah anoo tuulo oo asoo ku sugan oo newska oo wuxuu ka arkay in yaro bareebe ah Cabdibile oo ka hadlayo gabadhan taariikhdeeda waa gartay markaas ugu dhiirigelisoo yiri in aan gabadhaas kadib oo arrintii qorshii aan baxay aan ka salgareeyo gabadhan aan ka dhigto oo dhahay waa gartay marka buugga markuu qoray kadib gudaha dalka Talyaaniga dadku ay akhristeen sidee bay marka isku qabatay in lagu magac daro garoonkaasi kubadda lagu ciyaaro magaca Samiya wallahi waxay ku suura gashay garoonkan sida ana hadda aan ku sheegay Ismaaciil ahaan iyo dhalinyaro kale oo aad u fara badan oo Soomaaliyeed way u badan garoonkan waa garoonka kaliya magaalada Milano ama degmada Milano oo ugu weyn oo loogu talagalay dadka oo ajaanibta ah siba marka horyaalka Talyaaniga oo istaago oo horyaalka aan soo dhiri jiray oo junior markuu istaago kadib waxaa furmo horyaal oo ajaanibta loogu talagalay oo koob loogu dhigo saameynta ugu weyn maanta keentay in garoonka loogu magac daray aniga Ismaaciil ahaan markii aan hataa la sheekaystay qorayga oo Giuseppe kaalin weyn ka qaatay oo taariikhdii wadanka dhan uu qabsaday taas xoogaa lagu dhiirigeliyay haddana saan hore kugu sheegay garoomada hal kaliya aad way soo bateen hataa magaalooyin ka badan oo ka baxsan magaalada Milano waa loogu magac daray haddana waxaaba aad igu dhiirigeliyay arrintan saameynta Samiyo ayaa hataa waxaa u malaysaa in dowladda Talyaaniga hadda hataa waxyaalo badan oo marka hore dhinaca Soomaalida aan ka haysan hadda u malaysaa inay sufureen oo ay kamid yihiin dhinac walba ha noqoto in maanta waxaa u malaysaa Soomaalidii ilgooni loo leeyahay oo marka hore aan la soo jeedin hadda laakiin indhaha caalamka aan naqan